mudanayaal iyo marwooyin mar dhow ayaan socod dheer aniga ku soo maray dhulkan Hirshabeelle ee dagaaladu ka socdaan marka runtii wax badan ayaan ku soo aragnay waxaan aragnay dhowrkii iyo 30 sano la soo dhaafay dad 24 saac oo joog ahay ee xabad kaliya yani ku indhaqaaday kuna barbaaray oo wax kale fahamsan yihiin aysan jirin tan labaad waxaan soo aragnay oo ogaanay meelihii ay ka baxeen ama laga xoreeyay khawaarijta dadkii ku noolaa inay u baahan yihiin horta in dib u heshiisiin loo sameeyo ka hor in wacyigelin loo sameeyo runtii dadkii qulubtooda isbedel ayaa ku dhacay dhaxal badan ayaa saaran meel kasta markaan tagano dadka la sheekaysanay dib u heshiisiinta wax kale buu arkaanba marka dib u heshiisiinta waxaan u aragnay inay ka horeyso in loo sameeyo wacyigelin laga dhaqo waxa qulubtooda ku jira runtii way dhib badan tahay sidii yani arintaas muddo qaado doonta laakiin haddana ma ka daalayno laana waxaan ognahay qolooyinka khawaarijta wax kale intay soo dhaafeen ayay dadkii waxay gaarsiiyeen wacyigelin dheer ka bacdi qofkii inuu asaga isdilo oo isqarxiyo ayay gaarsiiyeen marka dadkii meel dheer ayay geeyeen marka dadkii in dib u heshiisiintii ka hor wacyigelin loo sameeyo aad ay muhiim u tahay waxa kale oo ogaanay degmooyinka xorta ahaa dagaalo sukeey ayaa ka jira si kasto loo sameeyana dagaaladii way dhamaa waayeen waxaan ogaanay ayagana markaan maalintii dawladdu tagto habeenkii ayay imaanayaan akhyaartii heshiiska soo gashay ayay handadayaan waxay ka bedelayaan markii wixii shalay lagu heshiiyay marka wax dib u heshiisiina oo soco karo inaysan jirin ayaan ogaanay ayagoon dalka laga saarin marka culeysyo fara badan ayaa meesha ka jira dhibaato badan ayaa jirta